maalmaha yarka ah oo adduunyadan aan joogno waa maalmo yar laakiin qofka ilaahay waafajiyay wax badan oo badan uu samayn karo waxaan la gudboon qofka mu'minka ah saacadaha uu nool yahay adduunyadan uu joogo inuu ku mashquulo daacada ilaahay subxaanahu wa tacaala oo uu badsado acmaasha saalixaadka ah haddii lagu yidhaahdo berri waa la guurayaa waana la safrayaa safar dheer baana la gelayaa sahaydaada soo diyaarso habeennimo ayaad haabhaabanaysaa laakiin miyaad og tahay saacadaha cimrigaaga ka dhiman oo adduunyadan aad ka guuraysa saacadahaas aad fadhidid oo yarka ah unbaa adugu xukuntaa oo iska leedahay laakiin waxaa kaa dambeeya saacadaha dambe inaad gaaraysid ma ogi kuwii horena waa tageen waxay ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala lagu diiwaan geliyana ma ogid aynu ku dadaalna acmaasha saalixaadka haddaba waxaa fiirisaa acmaasha saalixaadka ah fadaa'isha ay leedahay iyo qiimaha ilaahay agtiisa ay ka leedahay qofku wuxuu ku helayaa nolol wanaagsan adduunyada dhexdeeda uu ku noolaado iyo liibaan aakhiro ilaahay agtiisa uu ka liibaan ilaahay baana qur'aanka kariimka inoogu sheegay man camila صaalixan min dakarin aw unthaa wa huwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan طayiba walanajziyannahum ajrahum biaxsani ma kaanuu yacmaluun qofkii sameeya camal saalixa asagoo iimaan leh labadaas lama kala reebo aliimaan waalcamalu الصaalix ma kala haraan qofkii labadaas la yimaada adduunyada dhexdeeda waxaan noolaynaynaa nolol wanaagsan ayaan noolaynaynaa baa ilaahay nolol wanaagsan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u ballan qaaday waxa ugu weyn noloshaa wanaagsanna waxa weeyaan inshiraaxu الsadri wa naciimu اlqalb qalbigiisu inuu degan yahay oo inshiraax iyo waasicnimo uu haysto waxa ilaahay uu siiye uu qanaaco ku qabo hadduu wax yar helo ku qanacsan yahay hadduu wax badan helo ilaahay uga shukrinahayo camalkiisii aakhiro laga rabay inuu la yimaadana uu la yimaado waa nolosha ugu weyn inuu qofku ahaado qof ilaahay ku xihan subxaanahu wa tacaala qof daacada ilaahay ku dhex wareegaya acmaasha uu samaynayo oo dhanna ay tahay acmaal ilaahay raalli gelinaysa subxaanahu wa tacaala noloshaas baa ilaahay u ballan qaaday maahan daaro badan maahan dabaqyo badan maahan mataqaanaa xoolo fara badan maahan beero waaweyn intaa ayagoo haysta ayay habeen iyo maalin seexan la-yihiin dadkii aan iimaanka lahayn ilaahay qanaacadii intuu ka qaaday hami iyo murug iyo xusni dhiikar baa ku wada dhacay maxaa yeelay daaco ilaahay baysan haysan acmaashii saalixada ahayd iyo cibaadadii macaankeedii baynan haysan qof baa arkaysa halkaas masaajidka soo gelaya go-iisa yarkaa iska duuduubanaya iska barkanaya oo iska seexanaya wax walwal ah iyo wax walbahaaroo hayaan halkaasuu khuurinaya kaa xoola yar kaa magac yar kii magaca lahaa oo hantida lahaana waxa weeyaan saaka suu kabaha u gashaday buu u ordahaya maantoo dhan buu ordaya caawa markuu soo dhacana isagoo aadaaraya oo taahaya ilmihii waa seexdeen haweentii waa seexatay cashadii halkaasaa loogu daboolay inuu cuno ayaa culays ku noqonaysa intuu cunayana shaqo kaluu hayaadoo teleefoonno soo dhacaya iyo hawlo soo dhacayuu kala xallinaya goormee qofkaani nasanaya oo waxaan u haysta ku nasanaya oo cibaadada iyo daacada ilaahay ku gudanaya markii ilaahay qalbigiisa waafajiyo oo ilaahay qalbigiisa uu dareensiiyo meesha ay nimcadu jirto meesha ay naga jirto ilaahay markuuna dareensiiyo ayaan ogaanaynaa oo nasanaynaa oo raaxaysanayna nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam bal ilaahay agtiisa fiiri waxa yaalla iyo waxaynu ku mashquulayno isku dhibayno ilaahay wuxuu leeyahy acdadtu licibaadiya الصaalixiin maa laa caynu walaa udunu samicat walaa khaطara calىa qalbi bashar
waxaan u diyaariyey addoommadayda addoommadaasi waa kuwee addoommo dhan maaha licibaadiya asaalixiin weeye addoommada wan wanaagsan oo saalixiinta ah waxaan u diyaariyey maa laa caynun ra'at waxaysan il arag walaa udunun samicat dhegna aysan maqlin walaa khatara calaa qalbi bashar bani aadam qalbigiisna aanba ku soo dhicin ba ilaahay diyaariyey oo ilaahay uu kaa rabaa camal yar adduunyadan aad la timaadid oo saalix ah inaa ilaahay uga iibsatid jannada qiimahaas leh oo sidaa u weynin ka badan maalkaaga ku gado maskaxdaada islaamka ugu adeeg lisaankaaga ugu adeeg oo amarka iyo wanaagga amar xumaanta ku reeb cagahaaga ugu soco islaaxa iyo khayrka iyo wanaagga waxa ilaahay uu diyaariyey eeg adduunyada haddaad ku wareegtid meel kastoo aad booqatid waxa indhahaagu ku mabsuudayaan oo yaalla ilaahay agtiisa marka loo eego waxa yaalla wax jira ma ishaadu maxay qabataa waxa ugu qurxoonoo ishaadu ay qabato waxa ugu qaalisan adduunyada dhegtaadu ay maqasho waxa intaa meel fariisatay qalbigaaga ku wareegoo ku soo dhaca intaa markaa isku geysay waxaad ogaataa waxa ilaahay kula raba miskiinkaas adoo ah inay ka weyn yihiin oo ilaahay uu ku diyaariyey iimaan iyo camal saalixana lagugu xiray acmaashan saalixada ah waxaa lagu gaaraa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku jeclaado maxaa ka weyn adigu ilaahay baad jeceshahay laakiin in ilaahay ku jecel yahay ma ka dhalanaysaa waxaa laga yaabaa ilaahay inaad jeceshahay rasuulkana aad jeceshahay waddadii allihi rasuulna aadan haynbaba ilaahay agtiisana lagaa lacnadahay wax jacaylan ilaahay agtiisa aysan ku oolin laakiin muhiimaddu waxay tahay in adiga lagu jeclaado ilaahay wuxuu leeyahy ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat sayajcalu lahum الraxmaanu wudda kuwa ilaahay rumeeyey acmaal saalixa la yimid labadaasay wada socda ilaahay wuxuu u yeelayaa agtiisa wud jacayl baa ilaahay u yeelaya jacaylkaasi waxa weeyaan addoommada quluubtooda maxabo ayaa loo dhigaya ilaahay agtiisana waa laga jeclaanaya walidaalika nebigu waa ka yidhi salى اllahu عalayhi wasalam ina allaha idaa axaba cabda naadaa jibriil haddii ilaahay addoon jeclaado dhulka jooga ilaahay jibriil buu u naadiyaa isagaa malaa'igta ugu weyn markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay jibriil isagoo la hadlaya ina allaha yuxibu fulaanan faaxibah ilaahay hebel buu jeclaaday ee jeclow fayuxibuhu jibriil malaku jibriil baa qofkaa jeclaanaya intaas kuma koobna fayunaadii jibriilu fii ahli الsamaa wax allaaliya waxa samada jooga ayaa dhexdooda looga naadinayaa malaku jibriil baa ka naadinaya ina allaha yuxibu fulaanan faaxibuuh ilaahay wuxuu jecel yahay fulaan hebel baa ilaahay jecel yahada jeclaada fayuxibuhu ahlu الsamaa samadaa laga jeclaado halkaa markii arrintiisa laga soo oggolaaday uma yuudacu lahu اlqabuulu fi اlard dhulka ayaa waxaa loo dhigayaa qabuul baa loo dhigaya qabuulku waxa weeyaan in la aqbalo ducadiisa khayrkiisa wanaaggiisa ayaa dadka quluubtooda loo gelinaya dad baa dhintay 1000 sano ka hor oo aynu maanta u abtirinayno leenahay hebel 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 xadiidkii aynu sheegnana aan leenahay radia allaahu canhu raximahu llah aynu ducaynayno imise masaajid baa maanta jumcada keliya imaamu albukhaari looga ducaynaya ma xooluu ka tegey ma boqor buu ahaa ma madaxweynuu ahaa ma webiyaal buu dilaaciyey ma daaruu isdul saaray imisaa imaamu muslim looga ducaynaya imisaa culummadii cilmiga manaabirta iyo meel walba markii magacooda la soo qaadaa radia allaahu canhu raximahu llahu la leeyahy diinta ilaahay bay u adeegeen xag allah laga jeclaaday jacayl baa dadka quluubtooda loo dhigay ilaahay subxaanahu wa tacaala magacoodii ayuu baaqi yeelay dad waxaa jira ayagoo waa hore dhintay
oo lafahoodii baaliyoobeen ilaa yowmina haadaa dhexdeedna ku nool waa muxadisiintaas iyo ahlu cilmigaas weeye dad waxaa jira ayagoo hadda nool oo na dhex jooga la mid ah ayagoo dhintay la mid ah wax sheegaya iyo wax xusaya aan la arag hadday dhintaan iyo hadday nool yihiin isku mid ay tahay bal ka war liiskaasi waa furan yahay ilaa hadda waa awoodaa ilaahay inaa weydiisatay inuu kugu daro kuwaas shaqadii iyo camalkii saalixana aad la timaadid